kulan wacan wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV qodobada barnaamijyadeedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya oo sii karar qaata xaaladda guud ee Itoobiya wararkii ugu dambeeyay eegi doonaa saaxiibayaal ama xaaladda waxay abaal mariyeen 4 askari oo soo qabtay 2 askari oo ka tirsan ciidanka Tigreega gaar ahaan kuwa TPLF wararkii ugu dambeeyay eegi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaan eegi doonaa eedeyn gaar oo loo jeediyay qaybta ama xariga ee SRTV la yiraahdo haddaba waxay ka hadleen xaaladda xasuuqa galbeedka gobolka City iyaga oo afham xari ku sheegay in Soomaalida la xasuuqay laakiin ka gaabsada haddaba wararkaasi warar kale ayaan eegi doonaa saaxiibayaal aragtida dadweynaha oo saaxiibadu ay ka soo aragti dhiban karaan waxa ay noqon doontaa maxaa ku beega xilligan in warbaahinta afka ama xariga SRTV ay ka gaabsato xaaladda Soomaalida oo ay sheegtay in Soomaali aan la xasuuqin balse waxa dhacay ay ku sheegtay afham xari Soomaaliduna aysan fahmi karin haddaba aragtidaas ay saaxiibada fikir ka soo dhiban karaan qaybta hoose ee comment-ga barnaamijkeena muuqaalkeena like sar oo si shirkay saaxiibada kale gaarsii si ay saaxiibo nolol noqdaan barnaamijyadeedkeena ayaan guda galeynaa aynu ku bilaawno wararkii ugu dambeeyay xaaladda furmaha dagaalka waqooyiga Itoobiya iyo deegaano dhowr oo ka tirsan deegaanada ama xarada waxa ka socda dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada militariga Itoobiya oo gaashanaya kuwa ama xarada iyo kooxda TPLF dagaalkan oo maalintii lixaad galay ayaa wajiye badan yeeshay waxaana la sheegayaa in 3 qaybood oo kamid dhulka ama xarada ay noqdeen furmo dagaal taas oo saameyn ku yeelatay dadkii degnaa magaalooyinka ugu badan ee ku yaala dhulka ama xarada ayaa la isaga qaxay waana laga barakacay waxaana la sheegayaa in dagaalka meesha ugu adag ee aaga ah ee uu ka socday ay tahay deegaanka agaarka Maarso waxaana uu galay maalintii lixaad iyadoo lagu soo waramayay in dagaalo culus halkaas ay ka socdaan afayeen hadla TPLF xalay waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay u lahayd dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay TPLF isla markaana ay gaareen guulo waaweyn Gabra Saadaq oo ah afayeen kamid ah afayeenada kooxda TPLF waxa uu sheegay inay burburiyeen boqolaal kamid ah ciidamada militariga isla markaana ay hub badan ka soo furteen sida uu sheegay ama uu u sheegay warbaahinta gaarka ee Tigreega warbaahinta Tigreega ayaa xalay lagu baahiyay muuqaallo ay ka soo muuqdeen hub iyo sanad militari oo ay leeyihiin ciidanka militariga iyagoo sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay ay ku qabsadeen isla markaana ay gacanta ku dhigeen sidoo kale deegaanada Canfarta waxa ka socda dagaalo u dhaxeeya ciidamada Canfarta oo garab ka helaya kuwa militariga Itoobiya iyo kooxda TPLF iyadoo dagaalada Canfartana jihooyin kale ay ka socdaan deegaanka Oromada sidoo kale waxa ka socda dagaalo xadka ay wadaagaan ama xaaro iyo Oromo ayaa dhaqaaqay ciidan waxa ka wada kooxda jabhadda xoreynta Oromiya ee OLF la yiraahdo waxaana qorshahoodu uu yahay in deegaanada ama xarada ay gudaha u soo galaan maadaama heshiis wadajir ay wada gaareen iyaga iyo kooxda TPLF dagaalada waqooyiga Itoobiya maalintii lixaad ayaa toos u gashay iyadoo oo maanta uu dagaalo adag ay ka soconayaan halkaasi iyadoo aan la ogeyn waqtiga uu soo gabagaboobi doono dagaalada labada warbaahin ee ama xaaro iyo Tigreeg ayaa warar kala duwan ka soo baahinaya iyo kan dawladda iyada oo guulo dhan walba uu sheeganaya laakiin ma jirto warbaahin madax bannaan oo labada dhinac aanu ahayn oo war ka soo tubisay xaaladda furmaha dagaalka guulaha labada dhinac marka laga soo tago waxay noqon kartaa xaaladda guud ee Itoobiya mid aan la qiyaasi karin sidoo kale Tigreeg ayaa soo bandhigaysa muuqaallo cadeyn ah waxa ay afka ka sheegaan inkastoo ama xarada iyo warbaahinta dawladdu aysan hayn muuqaallo cadeynaya balse warar ay baahiyeen oo ay ku sheegeen in guulo ay gaareen waxay beeniyeen warar afayeenka ciidanka TPLF uu ku sheegay in guulo ay ka gaareen dagaal 5 maalin socday oo maalintii lixaad galay haddii dhanka kale aynu eegno maamulka degmada Tapak ee deegaanka ama xarada ayaa abaalmarin siiyay 4 maleeshiya oo gacanta ku soo dhigay 2 xubnood oo la sheegay inay ka mid yihiin kooxda TPLF sawirro ay baahiyeen kooxdan ayaa la sheegay in 4 askari oo ku hubeysnaa qoryaha AK47 iyo sidoo kale qoryaha kale ee fudfudud ay soo qabteen 2 xubnood oo ka tirsanaa kooxda TPLF kuwaas oo aan xirnayn dhar isla markaana huwa marooyin kaliya waxaana ay ka soo qabteen furmaha dagaalka maamulka Tapak iyo militariga ayaa 40 qof mid kasta ku abaalmariyay bamba gacmeed iyo sidoo kale 30 xabo oo rasaas ah maamulka ayaa sheegay in arrintan lagu dhiirigelinayo maleeshiyada si ay dagaalo u qaadaan maleeshiyada ama xarada ayaa hadda waxa isku abaabulaysaa qaab qowmiyadeed iyada oo Tigreeg dagaal la galaysa inkastoo ciidamada militariga dagaalku ay qayb ka yihiin dagaalada Itoobiya ayaa waxay noqonayaan kuwo ka sii daraya maalinta ka dambaysa iyada oo ama xara ay diideyso in militarigu dagaalku uu qayb ka noqdo oo ay rabto in si gooni ay ula dagaalanto Tigreeg dagaalka qowmiyadeed ee ama xara iyo Tigreeg u dhaxeeya iyo sidoo kale dagaalka qowmiyadeed ee Canfar iyo sidoo kale Tigreeg u dhaxeeya ayaa dhammaan lahayn maadaama arrintu ay isku bedeshay mid qowmiyadeed ee ka soo talaabtay dawladda TPLF dhanka kale haddii aynu eegno qaybta ama xariga ee SRTV la yiraahdo ayaa eedeyn kulul loo jeediyay waxaana dib loo raacay wararkii ka baxay qaybta ama xariga SRTV labadii cisho ee ugu dambeysay waxaana laga waayay hal war oo galbeedka City la xiriira inta badan waxay soo qaateen wararka ka baxa qaybta afka Soomaaliga ah
qaybta Soomaaliga SRTV waxaa labadan cisho laga baahiyay warbixin barakacayaasha Garbiciisa laga diyaariyay waxayna ahayd warbixin qurux badan oo haddii qaybta Amxaariga laga sii deyn lahaa wax badan soo kordhin lahayd. Marar badan waxaa isweydiin mudan ahmiyad waxa ay u leedahay Amxaariga bulshadeedu. Inta badan dadaalo ma aysan sameynin iyo warbixino ma aysan diyaarin, kaliya qaybta Soomaaliga wararka ka baxa ayay tarjumaan, haddana waxa ay heleen gunnooyin iyo mushaar aysan helin wariyaasha Soomaaliyeed. Arrinta markii ay qowmiyad noqoto, xitaa haddii qaybta Soomaaliga laga sii daayo ma aysan soo tarjumaan. Waa sababta marar badan ay isku weydiiyaan Soomaalida halka laga maamulo qaybta Amxaariga SRTV. Haddii arrimaha masiiriga ay waxgaradka iyo bulshada la wareysan lahaa ay fariimahani gudbin lahaayeen, maanta looma baahdeen Fana TV iyo kuwa la midka ah ee wararka been abuurka ka baahiya Soomaalida xasuuqa loo geysto. Sidoo kale, sida warbaahinada kale, Itoobiya ugu canaanan karaan in aysan codkeena baahin kol haddii warbaahintii ay maamulaysa canshuurteena lagu dhisay aysan arrimaha masiiriga mar walba aysan ka hadlaynin. Haddii arrimaha masiiriga iyo waxgalka arrimaha la xiriira xaaladda guud ay ka hadlaan, waxay noqon kartaa mid muhiimad gaar ah u leh, maadaama xaaladda guud ay noqon karto mid Soomaalidu ay qayb ka tahay warbaahinada Amxaariga. Deegaanada Canfarta waxaa ka socda xasuuq Soomaalida loo geystay iyadoo maalin ka hor weerar ay ku qaadeen qaybo ka mid ah maamulka Garbiciisa, gaar ahaan gobolka Galbeedka City ku yaala. Maamulka deegaanka ayaa maalintii shalay warbaahinta Fana ka dalbaday in raaligelin ay ka bixiyaan gafkii ay kula kaceen dadka Soomaaliyeed iyagoo adeegsaday kelmad odhanaysa Juntaaka Bari. Maamulka deegaanku waxa uu sheegay in aysan xiriirka wada shaqeyneed u jari doonaan in sharciga ay la tiigsan doonaan warbaahintan haddii aysan raaligelin ka bixin. Fana oo ah warbaahinta dowladda ayaa marka ka dambeysa warar aanu macquul ahayn ka baahinaysa xaaladda guud ee Itoobiya, gaar ahaan xaaladda Soomaalida, iyada oo mar walba xasuuqa Soomaalida loo geystan ay ka gaabsanayaan. Haddii aynu eegno wararka kale, Dr. Milkeysa Midega oo ka mid ah hogaamintii sare ee maamulka Oromada ayaa sheegay in xariga loo geystay Jowhar lagu raaligelinayo hogaamintii maamulka Amxaarada. Dr. Malkes ayaa yidhi hogaamintii Amxaaradu waxay xilligan soo jeediyeen in Jowhar la xiro, waxayna ku hanjabeen in aanu la sii wada shaqayn doonin haddii aan Jowhar Maxamed la xirin. Dr. Maliki waxa uu sheegay sidoo kale waa Malkes in Lema Michaels lagu sameeyay afgembi, wuxuuna sheegay in aanu sharciga la marin xilligii laga bedelayay xilka madaxweynaha Oromada. Dr. Malkes, madaxii hore ee xafiiska maamulka dhulka ee Oromiya, ayaa shacabka Oromada cafis ka dalbaday muddadii uu la shaqeynayay maamulka hadda jira, isagoo eedeyn kulul u jeediyay maamulka iyo sidoo kale xukuumadda Abiy Ahmed. Sidoo kale waxa uu eedeyn adag kala duldhacay xaaladda guud ee Itoobiya, isaga oo sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa aanu waxba ka soo bedelayn ama ka soo naasacadaanaynin xaaladda guud ee Itoobiya. Haddii aan ku laabano wararka dagaalada la xiriira xaaladda guud ee Itoobiya, dagaalada maalintii lixaad galay ayaa ka socda agagaarka Maarsa iyo sidoo kale Gaashan, waxaana halkaasi dagaal culus waa kooxda TPLF ay ku furteen goobo dhowr ah ay ka soconayaan, iyadoo dagaalo kale ay mar kale ka bilowdeen Tabrisaabit iyo Meersa. Isla deegaanka Amxaarada ayay ka wada tirsan yihiin deegaanadan. Shacabka Meersa ayaa sheegay in warbaahintu ay baahinayaan warar aanu raad lahayn, maadaama dagaaladu ay weli ku socdaan deegaanada dhulka ah ee Amxaaradu leedahay, iyadoo dagaaladu sidoo kale ay saameyn ku yeesheen Soomaalida intooda badan. Xaaladda guud ee Itoobiya ayaa marka ka dambeysa faraha kasii baxaysa, waxaana hadda qorshuhu yahay in wax laga bedelo hanaanka iyo dhibaatada ka taagan dalkaasi si xal waara looga helo waxa hadda ka jira gudaha dalka Itoobiya. Caalamka ayaa u dafaxeedanaya sidii uu soo gabagabeyn lahaa dhibka ka jira gudaha dalka Itoobiya, isla markaana xaaladda guud si loo dejiyo ayuu bilaabay in wadahadalo iyo waanwaan la dhex dhigo dhinacyada isku haya Itoobiya, waxaana xukuumadda Abiy Ahmed loogu baaqay inay ka laabato go'aanka ay argagixiso uga aqoonsatay kooxda TPLF si loo bilaabo hanaan wadahadal oo laba dhinac dhex mari kara. Haddii aysan xukuumaddu ka laaban, ma socon karto hanaan wadahadal, laakiin waxaa hadda qorshuhu yahay in xukuumadda Abiy Ahmed ay ka laabato qorshihii ay argagixiso uga aqoonsatay kooxda TPLF, kadibna si rasmiya loo bilaabo wadahadalo ay garwadeyno ka yihiin dalal Turkiga uu hogaaminayo. TPLF iyo sidoo kale Tigray waxay diideen in wadahadalada ay hoggaan ka noqdaan Midowga Afrika iyo dalalka Afrika ku yaala, laakiin hadda waxay u dhowdahay xaaladdu in gabagaba ay mareyso. Guud ahaan saaxiibayaal, barnaamijyadeena qaybtiisa koowaad maanta oo inaga intaa tan iyo barnaamijyadeena kale nabadgelyo.